بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم درسينا وحن كهد لنا إن شاء الله تعالى معالم في تربية النفس في ظلال رمضان يعني محان كلية المامها لقو موجينا يو نفط إلا ربيو لليليو بشا رمضان نفطا عمري بيلاده يعني waxa weeye waqti baa isu keen bedelaya sakano daqiiqado saacado maalmo usbuuciyo sanado iyagana waxa ku guntan cibaadooyin baa waxay u soo galayaan saacado oo waxa way salaadaha oo kale kuwa waxay u soo galayaan maxaan ku leeyahay sanad leh oo waxa way sida ramadaanka iyo xajka kuwa waxa jira sakanada iyo bilaha inala socda oo waqtiga ku wada guntan marka u dambaysana waxa way thumma in yani waxa marka u dambaysana yani waxaad ku dambaynaysaa qabri iyo ilaahay xaqiisa subhanahu wa ta'ala wa inna ila rabbikal muntaha dhamaanshaha iyo meesha loo ebiyoonayo oo lagu dambaynayo yaa wa ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa marka cibaadaadkan salaada aad aragteen waxa loo jeediyay maaha ilayna ku dhimayo waxa weeye salaadu naftay wax ka bedelaysaa had inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar salaadu fuxshiga iyo munkarka ina ka reebaysaa laakiin ala muruur zaman markaad muddo iska tukatid oo muddo dheer aad tukatid oo waliga aad soo soomaysay oo soo xajidid waxa laga yaabaa marka dambeeto sidii caado inay ku noqoto aan naftaada wax ka bedelin marka waxa la rabaa nafta inaad la socotid inaad nafta leylidid inaad tababartid inaad cibaadadan aad qabanaysid aad wax ka dheegatid yani waa in aad noqotaa sida warqad cad oo kale warqada cad marka ilayska ama falaaraha ilaysku ay ku dhacaan physics ahaan yani maxaa dhaca waxay sameeyaan bikaac ama reflection wax la dhaho ama inعikaas ayaa ka soo noqda marka hadii warqad madow lagu gano falaaraha ilayskana maxay sameeyaan imtisaas way laqayaan ya way laqayaano ma soo celinayaan iftiinki marka waxa la rabaa inuu iftiinkaas soo noqdo bishan ramadaanna waxa loogu talagalay maaha adiga in lagu dhibayo maaha in maaragta maxaan ku leeyahay la rabo in adiga lagu gaajaysiiyo ama lagu haraadiyo ama lagu caateeyo waxa weeye ya ayuha alladhina aamanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun soonka waa laydinku waajibiyey sida loogu waajibiyey oo loogu dul qoray umadihii idinka horeeyay maxaa sidaa loo yeelayaa la'allakum tattaquun waa inaad baqdaan waa inaad rabbi ka dhowrsataan waa inaad nafta xisaabisaan waa inaad naftii aad wax ka bedeshaan maxaa yeelay nafta waxa ilaahay ku qurxiyey zuyina linnaasi xubu الshahwaati min الnisaa'i wاlbaniin yani waxa weeye zuyina linnaasi shahawaat lama oran xubu الshahwaat jacaylka shahawaadka ayaa nafta ku jira shaydaan baa ku tacalluqa sidaa daraadeed waxaa la rabaa inaad yani bishan aad ka dheegatid cabsi ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa dayaadareed alimaam الraazi raximah llahu tacala wuxuu leeyahay bayana subxaanahu bihada alkalaami ana الsawma yuuriثu الtaqwa waxa ilaahay hadalkan ku caddeeyey inuu soonku dadka dhaxal siinayo baqdin iyo ilaahay in laga dhowrsado oo layska ilaaliyo lima fiihi min inkisaari الshahwati wa inqimaaci اlhawa waxa ku jira daraaddeed oo ah in shahwadii la jebiyo ama la qamciyo oo madaxa laga garaaco hawadii nafta sidaa daraaddeed waxa weeye sharkii iyo fawaaxishtii iyo waxaas oo dhan ayaa nafta ka go'aysa marka maadaama ay naftu ka go'day waa inaad marka meeshii aad baratay oo sidaas ay hadba saanta inaad meel dhigto socoto weeyaan buu abwaankii Soomaaliyeed marka waa inaad tallaabooyinkaas taqwo oo aad baratay iyo dhowrsanaanta waa inaad sii wadaa oo aad tarbiyada ka sii qaadataa way sidaa daraaddeed wuxuu nabigeenu sala allah alay wasalam leeyahay bini aadamka qofku markuu gafo yani waxa weeye ina alcabda idaa akhطa'a khati'atan hadduu gaf geysto nukitat fii qalbihi nuktatun sawda waxaa qalbigiisa lagu qoraa oo qalbigiisa lagu dhibciyaa yani waxa weeye nukto maxaan ku leeyahay ama dhibic yani madow ayaa lagu qoraa ayaa lagu sameeyaa markii uu marka khayr la yimaadana waa laga soofeeya
haddii uu dembigii ku celcelinayna dhibic baa ku dhacaysa dhibic baa ku dhacaysa ilaa uu gaaro raankii qur-aanku sheegay kalaa baraana calaa quluubihim ma kaanuu yaksibuun oo markaa uu mirir qalbigii dul foolo marka waxaa lagu soofeeyaa waa ilaahay cibaadadiisa subxaanahu wa tacaala weeye sidaa daraaddeed ayaa waxaa weeye soomka waxyaabaha laga helayo waxaa ka mid ah in dembi dhaaf laga helo nabiga sala allah alay wasalam wuxuu yihi ragima anfu rajulin ya yani nin sankiisu ciidda ha ku dhegto dullitooyo iyo ihaano daraaddeed ya marka dadkaasuu nabigu marka sheegay sala allahu alayh wasalam yani waxaa weeye wuxuu yihi nin sankiisu ciidda ha ku dhego ha hoogo oo aniga agtayda lagu sheegay oo aan igu sallin nebi maxamed baa la xusay sala allahu alayh wasalam kuma aadan sallin sidaasoo kale waa ragima anfu rajulin qof sankiis ciidda dhulka ha ku dhego dullitooyo daraaddeed oo dakhala calayhi ramadaan bishii ramadaan ay usoo gartay oo uma insalakha qabla an yukfara lah ramadaan ka siibtay isagoo aan loo dembi dhaafin kan saddexaadna waxa weeye nin ha hoogo ha bo'o oo sankiisu ciidda ha ku dhego oo labadiisii waalid oo waaweyn ay soo gaareen oo janno ku geli waayey marka waxyaabahan layna ku farad yeelay oo salaadu ka mid tahay oo soonka bisha ramadaan ka mid yahay oo birul waalideyn ka mid yahay kulligood waxaynu ka taransanaynaa inaynu nafta ku tarbiyeyno inaynu ka dheegano ka qaadano in nafteennu isbedesho aakhirka u dambaysana aynu janno galno marka ragima anfu rajulin waxaa loo jeedaa waxaa weye sida mubarakifuri uu sheegay ay lasiqa anfuhu bituraabi kinaayatan can xusuuli dul sankiisu ciidda ha ku dhego wey ayadoo markaa loo gogol xaaranayo ama sarbeeb ahaan loo sheegayo dulli inuu ku dhacayo iyo dullitooyo wey sidaa daraaddeed bisha ramadaan waa meelaha nabiga sala allah alay wasalam wuxuu yihi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi ma ujeeda qofkii bisha ramadaan sooma isagoo iimaan ku dheehan rabbi ajar ka xisaabsanaya waa la dhaafaya dembigiisi oo dhan ayaa loo dhaafaya man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi markasta uma jeedid yani waxaad ka siibanaysaa iska hoobinaysaa dunuubti marka dunuub iska hoobinta ilaah ka dhowrsashada waa layli bisha ramadaan lagu barayo haddii dadkii gurmadkii soo maray oo ardada soo ahaan jiray ama askarta soo noqday dhibbow baad maraysaa dhibbowga timaha lagaa xiirayaa dhar yar baa dhar askareed baa lagu gelinayaa cuntada firimbi baad ku cunaysaa hurdada firimbi baad ku seexanaysaa firimbi baad kusoo toosaysaa maxaa la rabaa askari layliyan oo jirkiisu dhisan yahay oo maskaxdiisu dhisan tahay oo caqiidadiisa caskariga iyo qabka uu rumaysan yahay ee diintiisa iyo dalkiisa iyo wadankiisa ya iyo dadkiisa ay dhisan tahay edab iyo akhlaaq leh ha dhowto wax maarayn kara ya ayaa markaa askariga dhibowga loo gelinaya mawjeeda marka yani waxa weeye sidaasoo kale ayaa tababar ugu jirtaa mawjeeda berritana waxa weeye yani waxa weye ilahi subxana watacala inuu janno ku geeyo ayaa maaragta maxaan ku leeyahay aad u baahan tahay oo aad rabtaa weeye yani mar kasta oo bisha ramadaan soo gasho nabigu sala allah alay slam wuxuu sheegay abwaabta jahanamana waa la xiraa abwaabta jannadana waa la furaa weliba maalin walba fi bacdi riwayat waxaa kusoo aroortay ilahay jannadiisa wuu qurxiyaa addoommadiisa u diyaariyaa marka runtii waa tababar iyo kuruud aynu ku jirno bishan waxaana la rabaa inaynu ka faa'iidaysano oo aad iyo aad aynu nafta wax uga bedelno oo aynu salaada qiyaamuleylka iyo taraawiixda aynu bishan ku baranay aynu joogtayno soomka inaynu joogtayno oo 6 maalmood oo ka dambeysay oo shawaalka aan raacsiino kii usbuuca ayaamulbiidkii maxaan ku leeyahay kuwa sanadlaha oo yimaada inaynu raacsiino inaynu ilaahay cabsidiisa ka dheehano inay nafteenu noqoto naf rabaysan oo qof ilaahay u jeeda xaggiisa ah sidii aan u sheegay askariga dhibowga la mariyay baynu dhibow ku jirnaa dhibowga maxaa laga rabay askari edable inuu soo baxo oo dhisan adna waxaa lagaa rabaa qof muslima oo dhisan oo dunuubtii iska soo hufay oo nadiif ah oo ilaa habeen walba ilahay dad cadaabka ka xoreynaya dunuubtii baa lagaa dhaafaya oo intuu shaqaystay dabeetana halkaa ka bartiireeya oo meeshaa ka sii wada oo halkaa maaragta maxaan ku leeyahay khayrkii usii dhawaada ayaa lagaa rabaa wallah subxana wa tacala aclam